marka xigta waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa maamulayaasha iyo madaxda macadka Heritage oo igu soo casuumay inaan kala soo qayb galo madashan aragti wadaagga macadka Heritage wuxuu tan iyo markii la aasaasay noqday maskax kaydsan oo ay ummadda Soomaaliyeed yeelatay wuxuuna qayb muhiim ah ka qaatay kobcinta tiraynta iyo tayeynta cilmi baarisyada laga sameeyo arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda Soomaaliya waxaa xusid mudan in mahad gaar ah aan kulligeen maanta u celino aqoon-yahanadii fikirtay waqtigana gelisay aas-aaska iyo taabagelinta macadka Heritage oo aan kulligeen ka faa'iideysanayno oo aan ka xusi karo Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi howlwadeennada macadka Heritage waxay mowduuca dooda ee madashan jaangooyeen iyaga oo aaminsanaa in halkan la isugu imaanayo iyadoo dalka doorasho uu u dareeray ama dhexda looga jiro nasiib darro taas ma aanay dhicin waxaana murugsan xal u helidda arrinta doorashada iyada oo aan weli meel la isla dhigin maaraynta ka gudbista xilligan kala guurka ee xasaasiga ah waxaana waajib biyo kama dhibcaan ah in xal wadar ogol ah la islana ogol yahay loo helo arrinta doorashada dalkana ay ka dhacdo doorasho daahfuran haddii aanay taasi dhicin waxaa laga yaabaa inaan la falgalno caqabado ka waaweyn kana saameyn badnaan doona kuwa aan halkan isugu nimid inaan xalkooda maanta ku gorfayno intaa kadib maanta iyo mowduuca madasha ay noogu yeereen walaaleen Heritage oo ah sidee Soomaaliya looga saari karaa xaaladda cakiran ee iska socota iyadoo diiradda la saarayo arrimaha amniga dhamaystirka dastuurka qabashada doorashooyin qof iyo cod ah iyo yegleelidda nidaam federaal oo shaqaynaya fahamkayga mowduucan ayaa ah sideebaa dalka looga saari karaa isgoyskan murugsan dalku waxa uu taagan yahay isgoys masiiri ah oo isku xiraya tagtooyinkii tirada badnaa ee la soo maray iyo timaadada sanadaha soo socda haddaba sida aan u maamulno una qorshayno ka gudbista marxaladdan masiiriga ah ayaa ka turjumi doonta masiirka dalkeenna iyo ka dhabaynta hamiga iyo yididiilada bulshada gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ka gudbidda isgoyskan ayaa inagu ridaysa waddada dowladnimada ama dowladnimo hana qaada haddii laga gudbi waayo isgoyskan aan maanta isugu nimid inaan ka doodnana waxaa laga yaabaa inaan 30 sano oo kale ku meeraysano isgoyska aan hadda taagannahay dowladnimada markaan u soo laabanno qofka muwaadinka ah ee Soomaaliga ah waa inuu dowladnimada ka dareemo naftiisa amni iyo cadaalad ahaan jeebkiisa dhaqaale ahaan noloshiisa caafimaad iyo waxbarasho ahaan iyo hamigiisa mustaqbal ahaan si marka ay dowladdu u bixiso adeeg bulsho oo lagu gaaro dareenkaas waa inay leedahay dhaqaale iyo miisaaniyad ku filan ay dadkeeda ugu adeegto inkastoo aan halkan ka doodayno masiirka mustaqbalka waxaan rabaa inaan ka fiirino jaanib kale waxaan ognahay in miisaaniyadda dowladdeena oo dhan marka la isku daro ay ka yar tahay miisaaniyadda dalalka qaarkood ay ku bixiyaan hal dugsi sare ama hal isbitaal maanta
aniga oo ka duulaya khibradeyda ku salaysan dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyo geedi socodka deyn cafiska waxaan idinla wadaagayaa doodeyda ah inaan dhaqaalaha dalka laga samayn karin kobac lagu daweyn karo baahida bulshadeennu qabto haddii aan laga jawaabin su'aalaha mowduuca madasha maanta tusaale ahaan soo buuxintii shuruudihii deyn cafinta dalka waxaa ka dhashay inaan lagu guulaysto oo aan la soo noqonno wada shaqayntii nagala dhexaysay hay-adaha lacagta adduunka bangiga adduunka bangiyada horumarinta hay-adda caymiska maalgashiga dawliga ah ee miiga hay-adda maalgashiga caalamiga ee IFC hay-adda horumarinta caalamiga ah ee AIDA haddaba su-aashu waxa ay tahay dib ula falgelidda hay-adaha dhaqaalaha adduunka ma inoo suurto gelinaysaa in dalku uu soo jiito malaayiin dollar oo maalgashi ah si dhaqaaluhu u kobco uguna kobco si mug leh maadaama aan soo buuxinnay shuruudihii hay-adaha dhaqaalaha adduunka jawaabtu waa maya caqabadda inaga hor taagani waa maxay maadaama aan shuruudihii soo buuxinnay jawaabtu waa in laga jawaabo su'aalaha mowduuca maanta sababtoo ah waxaa jira shuruudo kale oo ay khasab tahay in laga jawaabo oo laga rabo inay Soomaaliya ka jawaabto si dhaqaalaha dalka in la kobciyo loo xalliyo waa maxay shuruudahaas su-aasha koowaad oo la rabo in laga jawaabo waa kow dalka ma ka jirtaa xasilooni siyaasadeed oo sifo sharci ah oo aan dhiig ku daadan oo la odorosi karo tobanaanka sano ee soo socda si loo maalgashado balaayiin dollar labo dalka ma ka jirtaa xasilooni amni iyo deganaansho bulsho si loogula soo dhiiran karo maalgashi muuqda saddex dalka ma ka jiraa garsoor la aamini karo oo loo dacwoon karo haddii ay caqabado ku yimaadaan maalgashatada imaanaysa dalka iyo afar dalka ma ka jiraan hay-ado maaliyadeed iyo bangiyo si mug leh ula falgeli kara hay-adaha caalamka su'aalahan jawaabtooda ayaa marka waxay ku jiraan xal u helidda mowduuca madasha maanta taas macnaheedu waxa ay tahay in dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo taabagelinta dowladnimadii guud ay isugu yimaadeen hal isgoys oo ay khasab tahay in laga gudbo haddaba waa maxay howlaha inoo harsan si aan uga gudubno isgoyskan waa maxay howlaha ka dhiman mowduuca madasha maanta arrimaha dhammaystirka dastuurka aan isla fahamno kadib ansixintii dastuurka ku-meelgaarka ah Soomaaliya waxay si dastuuri ah uga guurtay nidaam dawlad dhexe waxayna u guurtay nidaam federaal oo ah awoodaha adeegyada dawladda oo awoodaha iyo adeegyada dawladda lagu daadejinayo iyadoo markaa aanay jirin hay-ado dawladeed oo xoog leh oo shaqaynaya horena aan loo dejin dastuur federaal ku salaysan dhammaystiran oo afti dadweyne loo qaaday sidoo kale ma dhammaystirnayn shuruucdii habraacyadii iyo siyaasaddii geediga qaran ee cusub lagu hagi lahaa taa waxaa ka dhashay marka inay weli noo taagan yihiin arrimo waaweyn oo wadaxaajood siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dawladnimada Soomaaliya ee lagu kala aragti duwan yahay arrimaha waaweyn ee wadaxaajoodka u baahan si loo dhammaystiro dastuurka
weli waa lagu kala aragti duwan yahay mar walbana dib ayaa loo riixayay waxayna kaliftay inaan taagnaano isgoyska aan taagannahay muddo ka badan 10 sano waa maxay qodobada haray marka ee dastuurka ay tahay in laga heshiiyo waa qodobkiisa 9aad ee ah maqaamka magaalo madaxda qaranka in laga heshiiyo waa qodobkiisa 44aad oo ah in laga heshiiyo khayraadka dabiiciga ah dalka waa qodobkiisa 47aad oo ah in laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada dalka oo la isla ogol yahay waa qodobkiisa 48aad oo ah qaab dhismeedka dawladda waa qodobkiisa 49aad oo ah tirada iyo xuduudaha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka waa qodobkiisa 51aad oo ah xiriirka iskaashiga heerarka dawladaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo qodobka 54aad oo ah kala qaybinta awoodaha dawladda 105aad awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka 122aad oo ah hanaanka federaaleynta maaliyadda oo aan waxba maaliyad laga kobcin karin haddii aan waxaas laga heshiin waxaa sidoo kale muhiim ah inaan haddana fahamno inay khasab tahay in si qoto dheer dastuurka dib u eegis loogu sameeyo awoodaha iyo mas'uuliyadaha hay'adaha fulinta iyo kuwa sharci dejinta si ay u dhaliso xasilooni siyaasadeed oo dalku u baahan yahay intaas oo qodob ayaa inoo hartay in laga shaqeeyo ma aqoon la'aan baan nahaysa maya ma xirfadlayaasha nagu yar maya maxaa loo xallin waayey waxay u baahan tahay xal siyaasadeed oo heshiis lagu yahay kaliya hawsha labaad ay walaalaheen noo dhigeen halkan waa yegleelidda nidaam federaal oo shaqeynaya si loo horumariyo hanaanka federaal ee la isla qaatay maadaama uu yahay nidaam dawladeed oo waddanka ku cusub balse looga dhaqmo 28 waddan oo ay ku nool yihiin in ka badan 40% dadyowga ku nool dunida ku nool maadaama dadka Soomaaliyeed ku heshiiyeen nidaam federaal ah waa in la dhameystiro qodobada soo socda si loo dardargeliyo federaaleynta dalka waa maxay qodobadaasi koow xoojinta dawlad goboleedyada oo saldhig u ah federaaleynta dalka labo horumarinta hay'adaha federaalka ee u qaybsan horumarinta arrimaha federaalka saddex dhamaystirka shuruucda nidaamyada hagayaasha iyo siyaasadaha udubdhaxaadka u ah dhismaha hannaan dawladeed oo federaal ah oo la meel marin karo kuwaas oo ay ahayd in la dhammaystiro ka hor inta aan dalku si rasmi ah ugu gudbin nidaamka federaalka nidaamka federaalka aan ka hadlaynana waa inuu sidoo kale xalliyaa 3 arrimood oo kala ah kow isu soo dhaweynta shacabka iyo xukuumadda labo ilaalinta midnimada Soomaaliya saddex xulasho hannaan dawladeed oo xasiloon lana jaan qaadi karta duruufaha ku xeeran dalka Soomaaliya sidaas la mid ah hiigsiga federaaleynta Soomaaliya waa inuu ku saleysnaadaa kow dhisidda bulsho siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo midaysan labo xaqiijinta iyo xoojinta dawlad wanaag iyo nidaam dimuqraadiyadeed iyo saddex xaqiijinta nabad waarta shaqooyinkaas aan soo sheegay waxaa looga gudbi karaa keliya iskaashi iyo wada shaqayn 4 sano oo soo socda qodobka saddexaad oo nala weydiiyay waxa uu ahaa doorasho qof iyo cod ah in la helo Soomaaliya federaal ah dimuqraadi ah oo nabdoon hiigsanaysa barwaaqo waxay si cad ugu qeexan tahay dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka oo hoosta ka xariiqaya in geedi socodka dib u hanashada dawladnimada iyo dimuqraadiyeynta ay udub dhaxaad u yihiin
dhismaha dawlad ku timaada rabitaanka shacabka sida uu tilmaamayo qodobka koowaad ee dastuurka si Soomaaliya ugu gudubto nidaam beeleed awood qaybsiga 4.5 loona meel mariyo hanaan dawladeed oo casri iyo dimuqraadi ah waxaa lagama maarmaan ah in marka hore la dhammaystiro shuruucda dimuqraadiyeynta iyo hay'adaha muhiimka u ah arrimaha doorashooyinka maxaa kuwaana ka mid ah kow waa in la helaa sharci doorashooyin oo la isla ogol yahay labo sharci xisbiyeed oo la isla ogol yahay iyagoo intuba ku xusan dastuurka saddex sharciga jinsiyadda afar sharciga diiwaangelinta dadweynaha shan in la xoojiyo guddiga doorashooyinka qaranka iyo lix dhisidda hay'adaha kale ee muhiimka u ah doorashooyinka sida guddiga xuquuqul insaanka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo la isku waafaqsan yahay golaha adeega garsoorka oo la isku waafaqsan yahay lagana hormariyay in marka hore laga heshiiyo nidaamka cadaaladeed uu dalku qaadanayo iyo maxkamadda dastuuriga dalka waxaa kaloo loo baahan yahay qodob kale oo toddobaad oo ah amniga taasoo ku soo xiraya arrinka ugu dambeeya oo halkan la ka weydiiyay amniga iyo xasilinta dalka sugidda amnigu ma ahan keliya ciidan iyo xoog si amni loo helo waa inay jirtaa cadaalad dawlad wanaag dhaqaale shaqo abuur hay'ado dawli ah hufan bixiyo adeegyo dadkuna isku haya iyo musuqmaasuqa oo lala dagaalo waxaa kale oo muhiim ah inaan fahamno in saboolnimada khilaafka siyaasadeed iyo khilaafka bulshada ay keeni karaan amni darro inkastoo dagaalka ugu xooggan aan kula jirno la dagaalanka argagixisada haddaba si loo dhammaystiro dhisidda ciidan qaran la isla ogol yahay oo hanan kara amniga dalka oo dhan waxaa lagama maarmaan ah in heshiis lagu yahay siyaasaddii lagu dhammaystiri lahaa ciidankaas iyo qaabkii lagu maamuli lahaa sugidda amniga dalku waxay ku suurtoobaysaa in ciidanku iyagoo isku dhafan ay ka howlgalaan gobollada dalka oo dhan iyadoo lagu shaqaynayo nidaam amni qaran sharci ah la isla ogol yahay waxaa kale oo lagama maarmaan ah inay jirto wada shaqayn iyo iskaashi waafi ah oo ka dhaxeeya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka dhexdooda iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka sidoo kale waa in la helaa dhaqaale fududeeya in la dhisi karo ciidan qaran oo waajibkooda gudan kara si ay u helaan agabkii ay u baahnaayeen waxaan tilmaamayaa inaan dhaqaale la'aan la dhisi karin ciidan tayaysan walaalayaal dalkeennu wuxuu leeyahay khayraad aad u badan dhallinyaro u caaboon horumarinta dalkooda laakiin u baahan in loo saldhigo lagana qaybgeliyo aas-aas dawladeed oo ku dhisan hannaan la jaan qaadi kara dunida horumarsan haddii aan dalka laga gudbin isgoyskan annagoo is-ogol is-aaminsan leh iskaashi dhab ah waxaa nagu adkaan doontaa inaan dunida ka dhaadhicinno inaan nahay bulsho isku duuban hal hadaf leh rabitaan inay si wada jira isu ogol yihiin leh raba horumar maadaama aan isla qeexnay jidadka ku xeeran isgoyska aan taagannahay iyo jidka ugu habboon oo aan ku leexan lahayn oo ina gaarsiinaya barwaaqo iyo dawladnimo waarta oo loo siman yahay waxaa Soomaali u hartay inay gacmaha isqabsadaan meel iska dhigaan danaha gaarka ah qulubta isu furaan fahmaanna xajmiga ay leedahay shaqada ina hortaalla 4 sano ee soo socota kuna shaqayno hadaf fog bilownana cutubkii casriyeynta dalka iyo ciidamada caruurteena waa mahadsan